ayaa maanta go'aaminaya waqtiga codka loo qaadayo mooshinka xildhibaano ka tirsan golaha ay ka keeneen gudoomiye Jawaari iyo halka lagu qaban doono kulankaasi. guddiga joogtada ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay maanta go'aamiyaan xilliga codka loo qaadayo mooshinka muranka badan ka dhaxdhaliyay siyaasadda Soomaaliya oo xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ay dhawaan ka keeneen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Cusmaan Jawaari. xildhibaano ka tirsan golaha ayaa sheegay in maanta guddiga uu kulan gaar ah arrintaas oo ka yeelanayo haddana uu socdo, waxaana la filayaa in maanta ay shaaciyaan fadhiga xildhibaanada xilliga uu dhici doono. fadhigaas oo cod lagu gelin doono mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaari. sidoo kale waxa ay guddiga soo saari doonaan warbixin ku saabsan halka lagu qaban doono kulanka xildhibaanada maalinta laga doodayo mooshinka gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Cusmaan Jawaari. xubnaha aan la hadalna ayaa sheegaya in ay u badan tahay ama ay suurtagal tahay in maalinta Isniinta oo ay taariikhda ku beegan tahay 16 bishan in xildhibaanada ay kulan isugu yimaadaan kadibna ay cod u qaadaan mooshinka jahwareerka badan Soomaaliya ka dhaxdhaliyay kaasoo hay'adaha dawladda curyaamiyay toddobaadadii la soo dhaafay. waxaana sidoo kale la filayaa in la iclaamiyo ama la cadeeyo halka fadhiga golaha uu ka dhici doono marka codka la gelinayo mooshinka Jawaari. sidoo kale guddiga ayaa maanta go'aaminaya in ay korjoog ka noqdaan maalinta codka la qaadayo ururada bulshada rayidka xildhibaano ka tirsan golaha aqalka sare hay'adaha kale ee dawladda, culamaa u diinka iyo beesha caalamka. waxaana la filayaa in warcad kulanka uu ka soo baxo.